عليكم ورحمة الله وبركاته داوديال كسو دوادا برنامجكيني فلانقينتا سياسada oo aad goor walba kala socon jireen warbaahinta Alol TV barnaamijkan oo hadba arinta taagan aynu ku falanqeyno ama aynu ku soo qaadano waxayna la socodsiinaya maanta anigoo ah Maxamed Faarax Suleeban soo diyaarintiisuna waagaasimaha warbaahinta Alol TV mudane Saciid Sanweyne barnaamijka maanta waxaynu ku eegi doonaa ama aynu isku dul taagi doonaa siyaasadda waddanka Soomaaliya iyo doorashadii halka ay mareysay shirka madaxda maamul goboleedada iyo dawladda dhexe ay isugu tageen magaalada Dhuusamareeb ee xarunta u ah maamul goboleedka Galmudug shirkan oo u dhaxeeya madaxda maamul goboleedada iyo dawladda federaalka halkaas inta aynu ka warhayno waxa gaaray madaxda maamul goboleedada iyo madaxweynaha dawladda dhexe ee Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo halka gudoomiyaha aqalka sare ee baarlamaanka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya mudane Cabdi Xaashi Cabdullaahi waraaq uu shalay soo saaray oo madaxweynaha maamul goboleedka Galmudug sida waraaqdaas loo fahmay ay ku socotay uu ku sheegay in uu shirkaas tagay isaga iyo wafdi uu hogaaminayo si arrimaha taagan oo uu ku tilmaamay in muran xooggan uu ka taagan yahay baarlamaanka laga soo dooranayo gobolada waqooyi ee Somaliland ee lagu doorto magaalada Muqdisho si looga wada hadlo ayuu yiri khilaafka ka taagan ayaan u tagayaa magaalada Dhuusamareeb ee xarunta maamul goboleedka Galmudug oo ay ku sugan yihiin madaxda dawladda dhexe iyo madaxda dawlad goboleedyada xubnaha ka ah ee dawladda federaalka ee Soomaaliya arrintan ayaa u muuqata mid aan wax badan aysan ka soo naasacadaan doonin sababtoo ah xilka madaxweynaha xilxiyeedkii madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo muddo kooban oo 7 bari ku siman ay ka harsan tahay iyo in doorasho 7 bari lagu qaban karo arrimaha la isla falanqeynaya ay ka mid tahay halka khuburada falanqeysa arrimaha siyaasadda ay sheegayaan in muddo xileed 6 bilood ah loogu dari doono madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ee shirka Dhuusamareeb si wax badan la isula qaada dhigo halka madaxweynaha maamulka Jubbaland Axmed Madoobe oo asagu shirkaas la tagay in gobolka Gadal loo madax baneeyo oo asagu doorashadiisa uu qabto halka dawladda dhexana ay ku dhagan tahay asagoo Axmed Madoobana uu garab siinayo ninka la yiraahdo Saciid Cabdullaahi Deni oo asagu madaxweyne ka ah maamul goboleedka Puntland halka Axmed Kaariyo Qorqoor madaxweynaha Galmudug uu isagu muddadii sanadka hayda uu xilka hayay uu magaalada Dhuusamareeb ku guuleystay inuu ka dhigo magaalo siyaasiyiinta Soomaaliyeed oo dhan kulmisa iyadoo loo arko siyaasado badan ciyaaro oo dhexdhexaad ka ah arrimaha socda balse dadka qaybtooda ay leeyihiin waa laba miciile dhanka nabad iyo nolol la safan sida ay dadka siyaasadda falanqeeya ay sheegayaan haddaba shirkan ayaa cid kasta oo danaha Soomaaliya isha ku haysa ay doonaysaa in ay aragto bal waxa ka soo baxa iyadoo oo warar kale oo xilli dambe oo habeennimadii xalay ahaa soo baxay naga soo gaaraya magaalada Dhuusamareeb ay sheegayaan in tiro madaafiica lagu garaacay guriga madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo laga dejiyay magaalada Dhuusamareeb asaahate wax faahfaahina ayaanba laga hayn madaafiicda halka laga soo tuuray cidda soo tuurtay iyo ujeedada loo soo tuuray sidoo kale qoliyaha saxaafadda u qaabilsan madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayuu la xiriirnay ayaa ka gaabsaday in ay ka hadlaan arrintan asaahate waxaan rajaynaynaa in ay bal xog fiican ay warbaahintu ka heli doonto shirkan oo maalinkii shalay ah madaxdu ay isugu tageen ayaa maanta la rajaynayaa inuu si toos ah u furmo halka madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu shirkan waqtigii uu shaacinayo uu sheegay in 5 bisha oo maalin jimcaha ku beegan uu hortagaya baarlamaanka labada aqal ee dawladda federaalka ee Soomaaliya asaahate arrintaas ayaa u muuqata in maalintaas jimcaha uu baarlamaanka shirkaas uu isugu yeeray madaxweyne Farmaajo uu dib u dhici doono maadaama ay maalin jimcaha ku aadan tahay shirkan qodobada la isla falanqeyn doono la iskula soo qaadi doono magaalada Dhuusamareeb waxa kamid ah arrinta baarlamaanka Somaliland ee lagu dooranayo magaalada Muqdisho ee gobolka Gado guddiga doorashooyinka oo qoliyaha mucaaradka ku ah maamulka Filla Soomaaliya madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ay sheegeen in ay yihiin saraakiil iyo shaqaale ka tirsan hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka ee uu madaxda ka yahay Fahad Yaasiin Xaaji Daahir oo isagu siyaasadan daaha dabadiisa ka falanqeeya ama ka haga bal waxaynu eegi doonaa halka
siyaasadda haatan magaalada dhuusamareeb la isugu tegay madaxdii maamul goboleedada iyo dowladii dhexe oo muddo xileedkeedii muddo 7 bari ku siman uu ka harsan yahay halka ay ku dambayso iyo meesha ay marto ayaynu wax badan eegi doonaa. axmed madoobe asagu markii uu Kismaayo ka soo baxayay wuxuu diyaaradda ka soo dhaansaday ciidamadiisii ilaalada ahayd oo kor u dhaafay 100 askari, halka Siciid Cabdullaahi Deni asaguna sidoo kale uu soo dhaansaday. bal oo dhuusamareeb ay ku sugan yihiin ciidamadii dowladda dhexe waxaa muuqata in kala baq iyo kala shaki iyo yacni tuhun uu jiro, is-aaminaadna aysan jirin, halka saddexda maamul goboleed ee kale iyo gobolka Banaadir ay yihiin fikirka madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo. bal waxaynu eegi doonaa shirkan halka uu ku dambeeyo iyo waxa ka soo baxa, iyo in maxamed cabdullaahi farmaajo madaxweynaha Soomaaliya muddo xileed loogu daro, iyo bal doorashadii gudoomiyihii aqalka sare Cabdi Xaashi Cabdullaahi oo isagu muddo dhan makarafoonka haystay oo dhawaaqayay lahaana aniga halay madax baneeyo. bal maanta marka uu dhuusamareeb tago iyo waxa uu kala soo laabto ayaan iyadana eegi doonaa, halka ra'iisul wasaare ku-xigeenkii dalka Soomaaliya Mahdi Guureed Khadar uu isagu kaba aamusay arrintan oo isaga loo madax baneeyay lana wareegay baarlamaanka lagu dooranayo magaalada Muqdisho. Cabdi Xaashi Cabdullaahina uu haatan asagu qarwareeg yahay lana socdo Siciid Cabdullaahi Deni iyo Axmed Madoobe iyo qolyaha mucaaradka oo ku doodaya in arrimaha laga wada hadlayo ay noqdaan baarlamaanka Muqdisho lagu dooranayo xubnihii doorashooyinka, halka arrinta kale ee wax sii qasaysa ama sii kulaynaysaana ay tahay in guddigii madaxweynayaasha maamulada Puntland iyo Jubbaland ay soo magacaabeen wasaaradda arrimaha gudaha ee dowladda federaalku ay tiri waa waxba kama jiraan oo habraaci doorashada ma aysan soo marin. arrintu waxay u muuqataa aan isjiidno gamca daalis meelna la isuma dhaafo. bal maanta waxaynu eegi doonaa arrintu meesha ay ku dambayso. daawade haddii aad ku cusub tahay channelkeena warbaahinta Alool TV, barnaamijka sii share gare, subscribe na dhe, kuna soo dhawow. aad iyo aad baan kuugu mahadcelinaynaa.